الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن أحمد محمد محمود سيلانيو مروة قرنكا مروة من محمد من ولد الشيخ محمد جرده قرها وزير هذا حلبان هذا مدح شركة التلسم دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف وين بيت هاي إن هالكن كلمة دي حلبان هذا حلبان بدأ بانونا هايو يجا إيد ماذا وزيرة دون يسوع marka waan ma hadnaqayaa kelmad afkoodii baan ku hadlayay kelmadoodii mudane madaxweyne waxaan kaaga ma hadnaqaynaa waqtiga badan ee soo gelisay in shirkadan private ka aad u dhiiri geliso in maanta halkan terminalkan oo loo baahnaa somgas aynu u furno laba ujeedaan u fahmay inuu madaxweynuhu waqtigiisa qaaliga soo siiyo hawshan iyada maanta aanu joogno kow dhiiri gelinta ganacsiga private ka loo leeyahay oo siyaasadda dawladana kow ka dastuurkuna damaanad qaaday suuqa xorta inuu taa dhiiri geliyo madaxweynuhu waa u yimid ta kale labaad badbaadinta deegaankeena oo aynu meel halisa ka taagannahay geedkeennii go'ayo abaarayna gelayaan dhulkii xaaluf ku dhacayo walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxihaa baa ilaahay yidhi arlada ilaahay baa dhirtan inoogu beeray ha fasaadinina markuu idiin wanaajiyey intaa dabadeed baa la yidhi geedka ilaahay inoogu beeray arlada dusheeda diinteenna xaniifka ahi colaadda dhexdeeday badbaadisaa nabad in lagu jaro iska baddaa markuu nabigeenu tilmaamayay dadka jihaadka galaya ee uu xuquuqda dagaalka sugayay maaha 1948 Geneva Convention articleska la qoray kuwa nabigeenu qoray baa ka wanaagsan xuquuqda dadka madaniga ah buu sugay yaan la laynin dadka caruurta ayaan la laynin waayeelkii duqeyda ayaan la laynin geedka cadowgu ka hoos gala geedka cadowgu ka hoos galo ha isku dayin inaad ninka hoos galay geedka isku jirto waayo geedka badbaadi dadku anfaca xayawaanka ku nool uraanta ku nool marka coliya abaarba coliya nabadba waxa lagu badbaadiyay in aan geedka la jarin marka si aan geedkeenu u go'in baa madaxweynuhu halkan u dhiiri gelinayaa in shirkadan Telesom Somgas maadaama ay keentay gaastan oo loo baahnaa siyaasadii dawladuna ay garab joogtay oo cashuurtii free looga dhigay iyagana aan ka rajaynayno inay standardka nolosha dadkeena ku qiimeeyaan in household kasta qaadan karo somgaas inuu gashado oo wax ku karsado si geedkeena uu badbaado sidii hadda yartayna ku halka ka sheegayay 9,000 oo geed ma 1 milyan oo geed in la badbaadiyo bishii iyo sanadkiiba taa halkaas aan dhigayaa waad ku mahadsantihiin waan idinku dhiirigelinaa hambalyaan idin leenahay shirkadda Telesom ta kale labaad ninkii la oran jiray ibn Khaldun ee ahaa aasaasihii culumta ijtimaaciga ah markuu ka hadlayay habka dhaqan dhaqaale ee bulshooyinka wuxuu yidhi dadka dal waliba leeyahay inta kaydka dhaqaale dadkiisu haystaan la eg yahay ayay xididada dawladnimadiisu aasan tahay buu yidhi waxaan xasuustaa maalintii hoteelka ambassador Hargeysa laga furay xaaji cabdiwaraabe wuxuu yidhi magaaladii Hargeysa maantay cadilantay buu yidhi maantay baalan iskaroodi waayo dhinaca waxa ka furnaa Mansuur xaggana ambassador baa laga dhigay hadda dhixirka la furtay buu yidhi nabadgelyada maalgashigu qayb u ka yahay marka maalgashiga localkaana madaxweynuhu inuu dhiiri geliyo halkan u yimiday kii caalamiga ahaana waa kan inoo wado oo dekedeennii maanta waxa la maalgelinayaa oo la gelinayaa 400 milyan oo dollar waa half a billion waa laga yaabaa qof bayna si ugu muuqato qof yiraahdo inoo dan maaha oo meelaha ka caarid laakiin aan waxaan isweydiiyay innaga dekedeennii baynu haysanaa haddaynu isafgaran weyno carabtu waa ka baxawn iyaga maxaa u damaanada ilaa wali laynama aqoonsan oo bank guarantee laynagama haystee hantida intan leeg ummadda ina gashanaysaa maxay damaanad inaga haysataa haddii ay aan isqabsanaba ma iyagaa khaasira mise inaga khaasira iyaa mar walba faa'iidada jooga waxa u damaanadaan idin sheegaya waxa u damaanada istiraatiijiyada ilaahay idna dhigay ee bariga Afrika aan kaga naalo ay waqtigeennina taagan tahay baa u damaanada inay gashadaan $500 billion marka horumarka inta leegi siyaasad ku dhiirata iyo aragti dheer iyo ku dhac hadaan lala imanin de lama suurta galeen waxaan shalay ka mabsuuday markaan magaalada Berber soo galaynay waxaan magaaladii may dhawaatay show dhulkii banaanaa baa dhismo lagu wada bilaabay oo DB Well baa timidii magaaladii xaggana u soo durugtay xaggii Hargeysa waxaan isla 5 sano dabadeed talo hadda Hargeysa Berber timaado nooc may noqon doontaa ilaa investment baa galaya waa bilowgii waxaynu doonaynaa inaynu dalalka jaarka ah ay isticmaalaan hadda ardayninkii wuxuu ka dhawaajiyay shidaalka inaanu haantan marino inkastoo isleeyahay waa shaqadii dawladda haddana mar haddii Telesom ku hamiyeyso
inay shidaalkii de inaan sahmino maxay noo diidaya bal inta ugu yar inaynu ogaano in dalkeenna shidaal ku jirayo in kale haddaynu taa kusii muranayso mashaakil maaha waxaan soo dhawaynayaa mudane madaxweyne inaad ku dhiirato wax kasta oo dalkan dan u ah inaynu maalinkaa maanta cid walba ka cabaadee waxaana maragma doonaya inay dalkan dan u ahayd labadii maalgashi ee dekedda iyo airboodka lahaa ee imaaraadku inoola yimiday waxa dan waa sida cadowga Soomaaliland uga xanaaqay waxa marag markhaati u ah sida dadkii ayna haystay ay u yidhaahdeen maxaad ku haysataan mina u barbara in la maalgashado waxay yidhaahdeen dowladda imaaraadku dowladdii Soomaaliyeed bay kala goynaysaa ereyga isticmaaleen waxay ahayd mubaasharatan bay ula macaamishay Soomaaliland oo Soomaaliya ka mid ah war inagu aqoonsigeenu 25 sano sugaynay wuxuu ahaa inaynu mubaasharatan dunida ula macaamilo waxaynu sugaynay 25 sano in dunidu inoo aqoonsato dad wax lala geli kara inaynu waxaan idiin hubaa haddii sidaa siyaasadda wanaagsan iyo nabadgelyadeena iyo dawladnimadeena aynu hareeraha sidaa uga joogno muddo gaaban oo 10 sano ku siman inaynu sida Taiwan 100 dal oo caalamka baasaboorkeena without visa arrival lagu qaadan doono airportada waayo inta dhaqaalahaagu xoogaysan yahay umay dunidu ku maalgelinaysaa inta dhaqaalahaagu xoogaysan yahay ku ixtiraamaysaa intaasay ku aqoonsan tahay ama United Nations inaynu kursi ku yeelana maaha wax muhiim ah in dalkeenuna aqoonsi yeeshaa wax muhiim ah maaha haddii ummadeenu noolaan karayso hadday safri karayso hadday dunida la macaamili karayso inagu aynu is aqoonsanaan odhan lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh